الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. dalka UK Sultan Maxamed Xaaji Xuseen jaamac Muuse jaamac madaxda kale ee fadhida madaxda xisbiyada dadka reer UK halkan fadhiya dhammaantiin mudanayaal iyo marwuunba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan runtii marka hore u mahadnaqayaa dhallinyaradii hablo iyo inamaba fikirkani uu ka soo baaxday iyo dhallinyaradii qabanqaabada shirkan maanta inoo samaysay ee lagu marti qaaday aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. hawl mudakara oo meelmar ah oo maxaanku dhahdaye dan mustaqbal oo ummadeed ay ku jirto ayay ku fakereen. insha allahu ilaahayna hala qabto. waan hambaryanayaa ururkan maanta halkan lagu aasaasay aynu kasoo qeyb galnay maxaanku dhahdaye East London Somaliland Society. aada iyo aad baan u hambalyanayna. sidii raggii hore ay u sheegeen waan la joogay qoladii hore 2007 markii iminka ururkii uu ka hadlayay madaxweyne ku-xigeenkii hore Axmed Yuusuf Yaasiin iyo anigu waanu la joognay inay midhalo noqdeen. aada iyo aad baan ugu hambalyanayaa. marka in ururo xambaarsan innaka magacii qarankeena inaynu samayno aada iyo aad bay u fiican tahay. waana dhab hadeerta iid baa si wanaagsan u sheegay marka had iyo jeer lagu jiro ummad dhismaheeda sidaynu inagu imika ugu jirno oo kale oo aynu doonayno bulshada caalamka inaynu uga mid noqono. waxyaalaha aasaasiga ah ee aadka wax inoo taraya waxaa ka mid ah inaad meel walba social structureka ama qaab dhismeedka bulsheed ee aada doonaysa inaad ku shaqayso in ay iyagu ay yihiin mid aad adigu leedahay oo qarankaaga kasoo jeeda. waadhow imika ururo fara badan baa jira laakiin waxa weeye waxay gedigood ku wada magacaaban yihiin magaca Somali Society. xagna inaynu markaynu doonayno Somaliland iyo Soomaaliya aynu wax kala doonayno waxaynu u baahan nahay inaynu yeelano waxaan la yidhaahdo clear demarcation xad cad oo innaka iyo iyaga ina kala saarayaan. waxaynu kala u baahan nahay ururada noocan oo kale yihiin doorka ay qaadanayaan waxaa ka mid ah sida haddeerta ragay halkan ka sheegeen ma aha oo qura in ay local communitieska halkan joogaan ururo yaryaroo samafalo waxyaalo yaryar u qabta maahaane sideebay dalkii wax ugu qabanayaan. waxa weeye in aa ururada leedihiin inay qaabkii inuu hadiyo jeer ku dhisan yahay. imika dal baa joogtaan dalkana joogtaan maanta aynu joogno waa dalkii ingiriiska. dalka ingiriiska qaab uu shaqeeyaabaa jira, siyaasadiisu qaabay u shaqeysaabaa jirta, dhaqaalihiisu qaab uu shaqeeyaabaa jira, sharciyadiisu qaab uu shaqeeyaabaa jira. haddaydaan qaababkaa ku dhisnayn oo aanay dhismihiinu ku salaysnayn dhibaata ay imanayso. waanta imika ayaan hadda inugu tiri baararkii waxay soo saareen in xawaaladihii la joojiyo oo nina hooyadii waxba u diri kari waayo oo maalinba ninuu tagayo xoogaa kiish loo sii xambaariyo sidii beriga hore miyiga loogala soo safri jiray oo isagoo 10,000 iyo 20,000 iyo 30,000 sita la xidho lacagta la waayo argagixisan la moodo dhibaata ay dhacdo. waxaan soo jeedinayaa walaalayaal halkan imika markaad joogtaan imika ururadan oo kale waxyaalaha idinka tarayaan waxaa ka mid ah saacadan aynu imika halkan fadhino caruurtiinii baa qaar imika ay inala joogaan. waxaa laga yaabaa inaguna inaynu iska daldalmayno caruurteennuna inaanaynu afgaranayn. waxaa laga yaabaa qowmiyadaha inaka inamadahe bangaaliga xaafadan East London aa wada degan tihiin maxaanku dhahday hindida bakistaaniga ilmaha yare halkan fadhiya ilmaha laagin haddii halkan lasoo joojiyo inuu afurtu ku hadlaayo. horta su-aasha waa inay isweydiisaa qoladiina halkan joogta. ubadkii waa keenteen dadkii waa kasoo fogaateen
سؤال شاوري اسمي ده ويدين حفظ من مالين تجيو دور هراء عالميو كمان دي قولي قد حاجين دي بسوط كاي بحثري إنك أفصل مالك ما يقانن وحلا يروي أمانة سعرو وروان ما قلت مالين ده ما كله ومحي كراني هم بقول هذا أفصل مالك كراني ururada noocan waxay idiin samayn karayaan inay Somaliland society ga idin ururiyaan waxyaalaha idinka khaldan waxa ka mid ah anigu waan idin imaataa nimanka imika halkan jooga council mayor hore Axmed Sambora wuxuu geeyay tower hamlet council ku geeyay oo Eastland Cockneyga nimanka lihi ay asaaska London leeyihiin oo taariikhdooda ku qorto waa taban halka cunaha waxyaa way qaylinayaan madowguna waa 15 soo 25 ma 27 waa banqoole meel bay wada degan yihiin systemkii bay galeen dabadeedna waa iyo waxa ay yiraahdaan wax ku doortaan bay degan yihiin codkii bay wada bixiyaan waxa la soo saaraya inta soo xildhibaan imika waxa la igu yiri inta voter register ka haydu ku jirta waa tirada inta register garaysanina ma doonta inay qadayso looma samaynin bagaalada systemkan hadiyad laguma siinin maxamed xaaji sultaan maxamed uu garanayaa islaantii mar councilka noqotay hodhalkana ku wada qaabila waanu shaakaysanay anigu intaas way qaylinayaan waana laga qaaday bay leeyihiin meeshii warta markaa dib isugu noqdo ururadiina nina dib tayadooda loo habeeyo ururada kalena ay isu yimaadaano bal horta markaa idinku imika halkan joogtaan على الأقل markaa ugu liitaan caruurtiinu af Soomaaliga ay isugu kiin barato caruurtiinu dhaqanka ay isugu kiin barato imika waxa weeye isbiid waa kuwa halka ka wada hadlayay wadani waa ka hadlayay waa ka xumay qoladu cidiyana joogana nakii wadani waa ka wakiila iyaguna way hambalyeynayaan ururka dadka ururada isbiida ka tirsan ay isu yimaadaan oo dad reer Soomaaliland ay noo noqdaan meel macalinoonayna jawaabtu waa maya marka nimika wadii gudoomiye wadani waa kiini xaq qolada xusbul xaakimka haysta ka deynina ee haysiinayeen halkan imika waxa weeye qadiyad inaga wada dhaxabayno ku hayna markaynu halkan tagnay xusbiyadu way kala xudxudanayaan waa siyaasadda waa that's the name of the game marka reer Somaliland markaynu nahay waxaan bari akhriyay qolada Eritrea ayaan manifest ay leedahay ayaa akhriyay waxay waa dhowr iyo konton kiiba iyagu ka soo jeedaan moogta halgankoodii waxyaalaha ku ay sameeyeen waxa ka mid ah waxay sameeyeen urur quraca oo ah jaaliyadda dibadda oo waliba North America u badan oo dalka Eritrea bay sameeyeen inta waliba la aqoonsanin waxay sanadkii sameyn jireen oo soo ururin jireen 80 milyan oo dollar oo lagu sameeyo developmental program waxaan ku raadayay dalka Eritrea haday qabaayil tahay sideeda waa qabaayil inagu waliba isku diin baynu nahay iyagu waa Kristaan waa Muslim waa qaran labada mid baahay horta anigu talaaban waxaan oran lahaa ayaan horaan meel isugu nimina waan nimi halkan dad badan oo muddo kale baa jooga rag iyo dumar dhalinyarada baa joogtaan dadkii wax bartay aqoonyahanka baa jooga su'aal aydan isweydiinin anigu ayaan horaan waan sheego waxa weeye caruurtu inteebay inaka noqonaysaa oo ay ina anfacaysaa ma 5 sanadood ee soo socda ma 10 sanadood ba ma 20 sanadood ba ma 30 sanadood ba adduunyada inta horumarta saasay wax u dhigtaan moogtay anigu waxaan aaminsanahay 10 sanadood ee soo socda caruurteena halkan joogta less than 10% baa inaka qodobka labaad dadwaa in la niyadka yiraahdo waxa weeye waxyaalaha ugu badan ee
مشاكل جرى وحكم بذا دول مسكرة لنا وحاول بدنا سوسايتي جينا في قاعدية وقت يعني بل أنك باش حريه دي بقى بتشوفناي بالقرادي إن لو تكون كيلومتر كسر ساعتين واحد فرق إنه كحلة ما نروح كروه وأكن أروح أنا بما تعيين بدنا حاله قاعدة بلكي حاجة على تشوفه حسبي هذا ونسكت الله والله اسمع يا أنت تقال سياسة بال وجرا كلام تيرو ونسكت هذا بال بنسكت صوت ولا مرق ونسكت صوت ولا وحوي ولا كلا قد سنين يا أركتيها لا ولا كلا وده الدوية فكرة هذا سياسي أنا وأرجو كرتشان ولا وين مكان كلا مركل تشوفه تدرك أقوم تيسي حتى ما تقبلتها waxaanad wadada dadka aqoontiisina waa la abuskaraynayaa laba siyadood bas khaldan baa loo isticmaalaya waa mala dalkii ma joogaan waxtarkooda dalkii uu ka maqay iminka barnaamij ayaan ay samayso professor Jamac Musa Jamac ay kala qayb qaataan Saciid Kucmudiyo oo aad iyo aad u wanaagsan halkana waxay ku qabtaan Soomaali week abwaanadeena dhan halkan ay noogu keenaan ayaan aad iyo aad ugu amaanaya أحمد سليمان بداية ركفر بدر هبل يهبل بين كيمياء تذكر وتاريخ النور أو الله يدي سوق هذا الله يدي كذا حاجة أنا ويكمل قيه حاجة أنا كمان مقدار سأشوف اللي سويتيه ما حايس كمان كذا جاي منكي ماستر ديجري كستي أبل PhD كستي UK شوقي يعني كذا الميجا هاي عندك لو كان محايس كمان متكلم سؤال شاذ سو جواب توصل ولا بعض سؤال شاذ توصل كذي وقف يعني أنا ما أقول لها تو وغدا قرأت شيء مكان كان برنامج يسوي الجديد يتحسن سيئات أرتكوليته أو مدن بورنتي أو حيل intellectual أو الشاعي إن يقدم الله فريستو ذاتك أقوياء كي روكدا كقوانين يقدموا فريستان إن محاكو لهذا ميرا هيك أمبريلا structure كسبيسان كرايان كسبيستان ميرا أي دولار كودا سارة objective كودو ميرا وتوسك هو عبارة يلا حددو أي كلا قيد سدان فكشنسك أو قلبا ميرا ينهدو قلدا سينا هلكا قلدا سينا هلكا قاروح برشد الله سارة قارنقك الله سارة قارنق الله سارة يبقى حينا نعرورتين لها أغاتو فهمنا إن هلكا فرددا بتقرأ بلد يبقى خسيدة تاكو وجبتا ما هي بكبير شيء بس أنا سيد الله مدقم يا أنا بخي أنا وينضرب هالكن والله ضرب ضايع وحبايا أنا سيج على سن الإنجليز كسيجون كيسا حقيقة رسمية وحوي والله ضرب ضايع ضرب ما قفت المية وحبنا الجواية لكن ضرب وحوي القوي بسيط لأنه إنك معها سيدا مريكان ضايع دول عورنا يا أفرو أمريكان أنا بكره قلت لها جو وحقوبتك إنه سمت بحرايا ورغدني dadka waayeelka iyo dadka aqoonyahanka inay noo sameeyaan habdhaqan ay noo diyaariyaan maxaan ku idhaahdayay society-gu sidii ay wada noolaan lahayd oo meel la isugu tegi lahaa xaafida la isugu tegi lahaa systemkan dalkan la geli lahaa doorashada laga qayb geli lahaa councilors yeelan lahaydeen arrimaha in la sameeyo cabdiraxmaan maxamed afyada waa macallin si koobanoo tiiday isagu uu u isdhegdhegereeyey oo uu dhibta u arkay ayuu u soo jeediyey baahiyaha jirana sida loo samayn karo ilaa iyo xaafadii baa la rabaa in la gaarsiiyo in ay xaafaddu imika waxaweye nimankan maxaan ku idhahdaay tabajiliceha la noosho مواقفتooda qorshahooda istaraatiijigooda habnololoodkooda waxa la gaarsiiyay xaafada dabadeedna ilmihiina taasuu ayuu ku koray waxaan ku soo ururinayaa waxa loo baahan yahay
إن فكر سياسي لكلا يشاء دبي معها إن أحساب سياسي اللي هو كالجيران دبي معها لكن واحد دبي ومدى اللي جرى إن نرشة ميل ليسمو كيني وايا إن الدقة كيني عسل كإنك هالكاسي رعاوي كقبصنو أما تشاندرتي كقبصنو أما عرقابة دي كقبصنو سو إذا كان يسمو أنا قد كوان dadka warwarka qaba baan ahay in hawsha la balaariyo oo maxaa ku raacday la adkeeyo qodobka kala soo jeedinaya waxa weeye qaranka markaynu nahay qaab baynu leenahay nidaam baynu leenahay dhismaynu leenahay xusbiyada iibka hadhow baan noqon waliba telefishan u yeelanaysaayoo waxaanu rabnaa nushuraynaa laakiin qarannimada iskuma haysano halkan imika Soomaaliya سفيرك جد الدرس هذا شو أنا واحد لا شقينا يا سفيرك ورد الشعلية عبد الرحمن سود هذا التشري عبد الرحمن أنا كعلي ما قوم كذا عندنا لو هذا شقينا يا نوع علي لو إحنا عشان يواب بشدي سنة we have to know هكا كندرت إنه ماشي هيكون تعالى وين يوجدنا أفكستو أمريكا أفكستو الصين أفكستو أمريكا هذا هندية marka halka qadayda ay ka dhacdo arintiisu waxay ku xiroonaysaa waa safaaraddiisa meesha arrimaha ku soo xiroonayaan waa safaaraddeena haddii ayna wada shaqaynina ma soconayno sida hadda ay u sheegtay Maryam imika Maryam kumay korin Soomaaliya haddana sida u hadda soo misalina Antonio Maryam sida halka u hadlaysan waa indha ka arkayna marka xooy dadaal u baa meesha loo baahan yahay markay doonayno Soomaaliland inaynu wax u tarno waxay u baahan tahay jaaniyadihiyo la soo wada ururiyay ururadiyo la soo wada ururiyay xusbiyadiyo wada urursan safiirkii oo hor socda inaynu MPs councilors maxaan ku raadayay wasaaradda khaarijiga halka yare laga murmay maxaan ku raadayay Chatham House meelaha inaan tagno laakiin bayno wada haysataa dibta xaggani xaggan buu jirtaa waxaynu kaga bixi karnaa inaynu qarannimadeena midayno insha Allah billahi karim ururadan jirana waxaan jecelahay inay qayb ka qaataan midaynta qarannimadeena dhalinyaradii ururka soo aasaastay raggii ururadii ka horreeyana ay idin sheegeen hawl baa ugu tala gasheen hawsha markaa ugu tala gasheen hawshaasi waqtigeeda qaadanaysaa suudadeeday leedahay dhibteeday leedahay maxaan ku idhaahdaa samirkeeday leedahay marka waxa la rabaa dhabar adeeg baa la rabaa in loo dhabar adeego idinkiyo ururadii ka horreeyana inay wada shaqaysaan